كورن حالة مثل كان دقنتها مدة دقنتها انت دقنا هي حالة ده سوء أبوري ديروك أديب أرجعهايت بلاس لانت أديب أرجعهايت سيدي أنت تكجرن أنا ندو بدن مقرضه والذين قرمنا halkan waxaanu ku sugannahay magaalada Baydhabo oo maanta aanu ku nimi kulan hawleed la xiriira u gargaarka dadka daaradku ay saameeyeen waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan la wadaagno shalay bay ahayd markii hooyooyinkan iyo ubadkan dhallaanka ah iyo dadkan muwaadiniinta Soomaaliyeed ay la tacaalayeen abaar ba'an iyo biyo la'aan dadka halkaad ku aragtaan waa dadkii ka soo jeeday deegaanada ugu wax soo saarka badan dalka Soomaaliya waa dadkii beeraleyda ah waa dadkii xilli roobaadka soo saari jiray Soomaaliya inteeda kale waxay quurato waxaan filayaa waa dadka ka kala yimi qansax dheere buur xakabo guud ahaan gobolada Bay iyo Bakool oo nolol sharfan oo wax soo saar leh ku noolaa waxa soo barakiciyay tala xumo ay galeen dadka Soomaaliyeed waxa soo barakicisay colaad waxa soo barakiciyay qaar aaminsan afkaar gurracan oo dalkii dab qabadsiiyay waxa maanta duruuftan aad aragtaan ee caafimaad darrada iyo biyo yarida iyo cunto yarida ay ku sugan yihiin cidda u horeysa waxa laga sugayo waa dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ah iyo maamul goboleedyaduba intii tamartooda way ku dadaalayeen dadka say u caawin lahaayeen waxa halkan ila socda Maxamuud Macallin oo ah gudoomiyaha hay'adda ka hortagga masiibooyinka waxa ila socda howlwadeena kale xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradaha kala duwan waxaan u kurgalaynay bal arrintan daaradku siday u saameeyeen dadka intoodii ugu nugleyd inta ugu nuguli waa inta cariishyada iyo bulalka noocana ku jirta waa wiilkan da'da yar oo aan haysan daryeel caafimaad cunto joogto ah halisna u ah inay ku dhacdo waxa la yiraahdo malnutrition ama nafaqa darro oo berri ka maalin markuu iskuulaad galo carqabad ku noqon karta korniimihiisa iyo fahankiisa waxaan rabaa halkan inaan kala hadlo dawladdu aad bay u dadaalaysaa intaas soo goobood ayay wax u dirtay maanta u dambeysay taladu waxay ahayd in deegaano fara badan oo webiyada ku qalqadeen ilaa 3 diyaaradood loo diro waxaanu u dabagalaynaa saameyntu ma uuna hamiyada iyo webiyada agtooda waa populationadii balaadnaa ee magaalada Baydhabo cirifkeeda ku noolaa biyuhu mitir ilaa mitir iyo badh bay u soo gaadheen halka lagu nool yahayna waa meelaha nacas oo kala waxaan rabaa halka inaan kala hadlo dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maalqabeennada inta wax haysata xilliyada adag idinka la idinku baxsan jiray u gurmada dadkiina nugul ee duruufahada ku nool oo wax tara ifi aakhiraba weydan anfacaysaa farintaas ma rabnaa inaan u gudbino muwaadiniinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyaga lagu baxsadaa qurba joogto in badan bay dadka wax taraan waxa kale oo nala socda hay'adaha samafalka oo iyana duruufo adag ku shaqeeya waaye adag ku shaqeeya xilliyo adag ku shaqeeya oo ku dadaalaya inay intii tamartooda adduun weynahoo dhan baa biyo baxda iyo abaar ka jiraan inay ummadda wax gaarsiiyaan waa safar aan u kurgalayno duruufta ogaanayno gobolka koonfur galbeed dad ku dhow 200 oo kun ayaa halis ugu jira waxyeelada daaradka waxa ku dhintay 12 qof ilaa iyo hadda nawaaxiga magaalada Baydhabo ama guud ahaan gobolka waxa halis ku jira intaasoo da'yar iyo waayelba dadka intooda nugul ayaa halis ku jirta waxaan rabnaa arrintaa in indhaha lagu hayo culimada Soomaaliyeed oo guddiga la shaqaysta waxgaradka aqoon-yahanada ardayga qof walba wuxuu hayo dadka wax taro oo naftooda la badbaadiyo maxaan saa u leeyahay biyuhu way yaraan karaan waxa laga yaabaa wiigii hore biyuhu halkan ka buuxeen soo saas ma maanta inay yara gureen laakiin raadkii ay ka tageen iyo saameyntii baa jirta caafimaad darro faafista cudurrada biyo la'aan nafaqa darro shaqo la'aan waaba saasoo jidkii xamar iyo isku xidhi jira Baydhabana uu ka kala go'an yahay meesha la yiraahdo burweyn wala weyn jamaac uu ka kala go'an yahay
oo ay adag tahay in badeecadii la keeno macnaheedu waxa weeye intii suuqa taalayna barayskeeda kacaya dadkana ma iibsan karaan sixirka kacaya walaalayaal duruufta adag bay dadku ku jiraan halala socdo hay'adaha dawladda waanu hawlgelinay wasaaradda caafimaadka kuwa maamul goboleedyada intii tamartooda si joogta bay u wada shaqaynayaan laakiin duruuftani mid ka ballaaran weeye inay dhammaantood kaafido wasaaradaha kala duwan ee ka shaqeeya heerarka kala duwan waa inay Soomaaliya dhammaan iskaashataa beesha caalamkuna hogaamiyihii baa nala socda maamulihii u sareeyay hay'adda OCHA iyo mas'uuliyiin kale World Food Program iyo UN ta guud ahaan ka kala socda aad ay arrintan u adag tahay dadka ha loo gurmado shalay shirki golaha wasiirada hay'addu way soo bandhigtay madaxweynaha noogu yimid ra'iisul wasaaraha fadhiyay wasiirado dhanna waa la faray laakiin gacmo wada jir bay wax ku qabtaane Soomaaliya inta ay qoriga iyo beeluhu marka islaynayaan waa la iibiyaa hubkee warna faham marka la badbaadinayo shilinka ha loo hor isaga idin anfacay waa maasantiin